xarunta Al-Najaah waxay ka mid tahay xarumaha inta badan tababarka xirfadaha kala duwan ee hadda noqon lahayd xirfadda caafimaadka iyo waliba horumarinta marka aadanaha human development inta badan xooga saarta dabcan xarunta waxay ka mid tahay xarumihii marka ka ambaqaada magaalada kadib markii aan aragnay baahiyo badan oo jira magaalada marka la fiiriyo gaab badan oo dhinaca xirfadaha dhinaca caafimaadka in marka uu jiro marka kadib aan marka waxaan nagu dhalatay in muhiim ay tahay marka waddanka inuu helo xirfadlayaal kala duwan dhinac walba leh marka inta kadib maadaama marka xaaladda jirta awgeed aan aragnay waxa yani sanadkii 2017 ama 2017 bishii Maars waxaan nagu dhalatay marka inaan aasaasno xarunta Al-Najaah taasoo marka dabcan waqtiga maanta ay joognaba yani ku soo aaday xilli loo baahnaa wadankuna u baahnaa xirfadlayaal marka kala duwan oo qaybaha caafimaadka marka waxyaabaha inta badan aan bixino ee xooga aan saarno waxa kamid ah inaan tababarno marka ardayda qaybaheeda kala duwan gaar ahaan ardayda barata marka caafimaadka anagoo marka xooga saarna waxyaabaha skills ee ardayga marka ka caawinaya badana marka ardayda aan tababarno waxa u badan ardayda dhigata jaamacadaha magaalada ku yaala iyo waliba kuwa marka degmooyinka iyo gobolada marka u dhow gobolka marka Banaadir ayaguna marka wax ka barta marka inta badan ardayda dabcan jaamacaduhu waxay ka helaan practical laakiin ardayga wuxuu u baahanayaa skills hadhow oo xoojin karta shaqadiisii uu ka heli karo marka kalsooni uu ku heli karo ku shaqaysan karo marka anaguna inta badan waxaan xooga saarnaa skillska ardayga hadhow caawinaya iyo waliba dadka kale marka xirfadlayaasha caafimaadka ayaguna shaqaysta ee u baahan marka inay helaan ayaguna waxyaabo waxaan dhaanaa taqwiye ama xoojin waxa ay ku shaqaysanaa inaan xoojino marka nidaamka inta badan anagu aan ku tababarnaa qaybaha caafimaadka gaar ahaan ardayda laabka oo kale iyo ardayda marka nursing kuwa ugu badan marka aan tababarno marka waxyaabaha inta badan aan xooga saarno waxay tahay manual in ardaygii marka waxyaabaha asaasiga ah inuu barto si marka break maalin meel walba uu tago gobol iyo degmo ee gobolka maxaan la kamid ah wadanka inuu marka ku shaqaysan karo sidoo kale modern technology oo maanta adduunka marka lagu shaqeeyo isagan in wax badan marka laga fahansiiyo laakiin waxa asaasi ah qofka muhiim u ah waxay tahay waa manualkaas anaga marka manualkaas aan xooga saarnaa Al-Najaah markaan ku soo biiray intaan ku soo biiran ka hor farq weyn ah dhaxay markii hore ma heli jirin practice joogto ah markaan imaado kadib wax badan waa faa'iiday indhi way kala furmeen ardaydu marka waxay isugu jiraan arday marka magaalada degan iyo kuwa marka gobolada ka yimid marka ardayga gobolka yimid waxa laga yaabaa modern technology inuusan marka available xaga ka ahayn uusan heli karin maadaama uusan heli karin in labaduba marka kii uu helaba ku shaqaysan karo marka labaduba marka uu noqon karo qof yani labada fursadoodba ka faa'iideysan karo oo labaduba isticmaali karo si hadhowna marka uu noqdo qof yani dhinac walba ay noqotaba marka modernki manualki labaduba ku shaqaysan kara sidoo kale waxyaabaha inta badan anaga marka aan bixino waa professional diploma soconaysa 6 bil sidoo kale sanad marka professional diplomada marka waxa ugu talagalnay hadhow qofka waxyaabihii aan ku train gareynay inay ka tarjunto ayadoo marka cadeyn u ah hadii qofka hadhow uu shaqaysan lahaa ama hadii marka dabcan isaga uu si gooniya marka meel kale u shaqayn lahaa inay ka tarjunto marka inaan train gareynay oo aan ku train gareynay marka waxyaabihii xirfadihii marka anagu aan barnay marka inta badan waxyaabahan qabano ama aan bixino taasa ugu weyn human development-igi kama marna oo seminaries marka dabcan bulshada kobcinaya marka laga hadla garaadkooda ayagana marka waxyaabaha targetkeena ee aan bixino ay kamid runtii marka aan ku soo biiray meeshan waxyaabo badan ilaa hadda farqi badan ay dhaxay xagga aqoonteeda waxyaabo badan iska kana beddelay runtii hadda full confidence aan isku qoon nafsad ahaanteeda ee ardayda waxay la barato dhan si wacan wax uga fahnay ma sha Allah waan rajaynaynaa inaan si wacan hor socdaan u sii wadano inta noo dhiman inaan ka sii dhameystirno na qabno bulshadana aan ku horumarino waxyaabii aan meesha ka baran marka mar waliba anagu xooga waxa aan saarno waa skillska adduunkan waxyaabaha ugu muhiimsan muhiimka qofku waa inuu xirfad leeyahay marka waxaan ku tababarnaa waxay tahay xirfada
waxaana mustaqbalka dhow aan rajeynaa insha Allah in aan soo saarno markaa arday xirfad leh isla markaa waxyaabaha kale ee markaa aan yoolkeenana ah rajeynayno waxay tahay in la helo dad markaa cilmi baarayaal ah dabcan researchers oo xirfadihii ay barteen bulshada ugu shaqeeya soo saara waxyaabo badan marka aad eegto dabcan bulshadeena waxyaabaha ka maqan waxa kamid ah in aysan jirin markaa xog rasmi ah marka xaaladaha kala duwan haday noqon lahayd cudurrada maanta adduunka ka jira in marka xog rasmi ah laga helin wadankeena marka la fiiriyo marka sida rajeynayna insha Allah inay noqdaan ayaguna kuwa marka xirfadaha ay barteen ku caawiyo bulshada soo gudbiya u noqdo marka kuwa soo tamiya xogta marka iyo xaalad kasta oo dhanka marka waxyaabaha ay baranayaan uga faa'iideeyay waxaan ka fahmay marka imaanay kooda horeeto si fiican wax badan ma heli jiro baraatika ah laakiin hadda waxa hel baraatika joogta ah wax badan aan markaas ay sheegay islaha waxa kaaga jiro mugdi wax badan hadda waa fahmay ma sha Allah marka waxyaabo badan ay ka faa'iiday xaruntan marka imaanay ilaa hadda marka waxa rajeynaa inaan hadda inta isi dhimanna asi dhameystirto insha Allah marka waxyaabaha inta badan nagu targetkeena taasa kamid ah oo inta badan aan xooga saarnaa waa rajeynaa marka insha Allah